madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo qaar ka mid ah golahiisa wasiirada mas'uuliyiin ayaa saaka aroortii hore lagu soo dhaweeyay tuulada Kalagsharka oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kagana beegan dhinaca galbeed magaaladaasi waxaana si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka Togdheer oo horkacayo badhsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ka degmada Uqaal Salaadiin waxgarad dhalinyaro haweenweynaha ku dhaqan gobolkaasi Togdheer iyagoo si meeqaam sareysa u soo dhaweeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxad wajiyadooda ka dheehanaysay farxad ay ku dheehan tahay wadaninimo waxayna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweeyeen sac iyo mushxarad iyo halkudhigyo ay ka mid yihiin mudane madaxweyne ku soo dhawo gobolkii Togdheer iyo sidoo kale halyeeygi uu soo socdaa waa hadallo ay ku hadlayeen dadka farxadooda cabirayay ugu dambeyntiina madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa loo soo galbiyay dhinaca iyo gudaha magaalada Burco taasoo la filayo inuu kaga qayb galo qalin jabinta jaamacadda Burco ma aha markii uu horeysay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu yimaado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer balse waa markii 20 iyo intii uu la wareegay talada dalka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 13 November 2017 guud ahaan Soomaaliland Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco.